الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لا برنامج كيني سوغانتا waxaynu ku guda jirnay maahmaahda iyo qaybaheeda. waxaynu soo qeexday maahmaahda halayda iyo maahmaahda qeexideeda iyo maahmaahda qaybaheeda. maanta waxaan tilmaami doonaa intii Ilaahay naga gaarsiiyo bal maahmaaha laba leeyahay iyo sida u yaalaan. waxaan soo qeexnay maahmaahuhu markay hal iyo laba iyo saddex iyo kuwa yoga kale wax ka tagi doona xaraf raac bay leeyihiin. waa laba isku sidkan. waxay ka mid ah laba siday wuxuu og yihiin waxuma sheegaan. nin reer u weyn iyo naag u mulsa ah waxay naga dardaarayaan marka sideen horeba u soo sheegnay qofkan reerku u weyn yahay wax kastoo ka dhaxdhaca inaanu sidiisa afka ugu ballaadhin ee kor ka xaadiyo qofkan kalena sirta bukaankiisa ilaaliyo. waxaa ka mid ah lababa waxaanad filayn baa kaaga soo baxa. dad iyo duurba waxaanad filayn baa kaaga soo baxa. oo duurkuna waa kayno dee waxa laga yaabaa inaad dhifna ugu tagto dheefna ugu tagto. dadna waxaanad filayday inuu kaaga soo baxo cid aad aamintay ay ku khiyaanto ama aad cid aad cadownimo ka filaysay dheef iyo nasteex kuu noqoto. mahmaaha waxaa ka mid ah rag labaa u daran dumarna labaa u daran. rag labaa u daranoo ciilkama kore iyo calooshi la ciyaar baa u daran. ciilkama koruhu waa qof mar walba cid niyadda wax ugu hayo cuqdadii ku jirto. bari baa waxaa la igu sameeyey kaasi waxaasuu igu yidhi ciddaasi waxaasay igu samaysay. waa qof gobonimada marka la qaybaha gobonimada la sheegayo waxaa ka mid ah gobonimadu waa qofka inta badan marka dadkeena horleeyay qofku waa qof goba 9 qodob bay ku soo koobi jireen oo uu ku jiro qof aan dadka caloosha waxba ugu qaban. waxay oran jireen gobka waxa qofkaasi waa gob markale waa qof garasho leh garawshiya leh abaalgelid leh saamaxaad godobeed leh guubaabo ficil leh sooriyo gobeed leh hambaga siin leh gareeb taariikh dhaxalgala leh. marka qofka gobka ah ee astaamaha leh saamaxaad godobeed hadii qofka laga waayo waxa la yiraahdaa qofkaasi gob maaha. oo waata mahmaha tiraa mahmaha laba leeyahay tiraa laba lama noolaado. marka waan gaari doonaa taase ciilkama kore masada adraayo waxa ku jiray midho hoos ka tuurka nin raga halmaamay naxli hursan baa tahay. qofku inaanu ciil qaban noqon calooshiisu nadiif ahaataa oo dad xataa waxyaabaha rasuulku tilmaamay saxaabigii uu yiri waxa idin soo gali doonaan helo jannada kamida aakhirkii wuxuu noqday ninkii yiri dadka caloosha waan ka sii daaya cidna niyada waxba uga qabto. rag laba u daran ciilkama kore calooshi la ciyaarkuna waa qofka markuu dharagsan yahayna dadka ku dibira dhacsada ee aanay garashadu ku oranado hadaad qadaysay kan waxba ma cunina dhibta ka daa. marka uu baahan yahayna dhulka galay dad ugu liita waa calooshi la ciyaar baa leeyahay. markuu dharagsan yahayna dadka waxba uma arko. markuu baahan yahayna bakhtiga uu dadka lugahooda waa ka hooseeya. marka qofkaasi waa rag calooshi la ciyaar iyo ciilkama kora u daran baa leeyahay. dumarna cirteed bogatiya casar seexata u daran. nolosha xilligan mahmaahdu baxday waa xilli dadkeenu miyi ku noolaa deesaan horeba u soo sheegnay mahmaahan iyo murtadiya barigi dadka garaadkoodu noolaayay dadku garaadka xorta ka hayeen bixi jireen waxan malaha waana intii dadka cuntada organiga ah hagaagsan cadki iyo caanaha ku noolaayeen aanay waxan la soo sameeyo waxa warshadaysan iyo waxan cunay moojiisi ay tahayba. waxaad garanaysaa marka gabadha xilligan la leeyahay cirteed bogato waa gabadh iyadu markay dheeriga bislayso aan caruur iyo oday iyo cid uga baa markay inteeda iyadu ka bogato tiraahdaa waxa hadhayna ma xoolaha u dhigta.
casar seexatana casarku wuxuu ahaa xilliga hawsha ugu badan baa dumarka u taalay halkan qolqolka aqalka hararka iyo kabada iyo aloolka iyo haanta iyo haruurka iyo waxa ay ku sameynayaan marka xooluhu soo hooyanayaan casarkii iyo galabtii waa xilliga la diyaar garoobayo waxaan maanta meesha lagu qabanayay meesha ka qaad haddii la ku roon yahay awrta inta xoolaha jila la yidhaha guri joog awrta la rartaa ka mid a ama dameeraha ka mid a ama maqashaa ka mid a ama nirgaha ka mid a wixii guri joog ahaa iyadu awrtii dabranayd bay soo dhaweynaysaa xaabadii reerku dhariga caawa ku karsanayay bay soo guraysaa holkan qolqolkan xooluhu marayaan xeryahooda ka kala tegayaan wixii yaallay bay ka guraysaa dee iyadu waxaasoo hawli u yaallaan gabadha seexata iyana dee maaragtay waa labada dumarka ugu liitalan jira cirteed bogato iyo casar seexato mahmaha laba laydaa waxaa ka mid a laba lalama noolaado ama laba lalama joogi karo webiyo rag iyo wad aqoonna agood baa layidhi webiyo rag loo jeedo qof wax walba kaa iga daa ninkaa ma arki karo kaa ma maqli karo wax walba xagga xun buu ka istaagaa wuu ka webinayaa iyo wad aqoon dumar baa layidhi dumarku naxariista iyo naxdintay ku fiican yihiin hadday gabadhu gabadhaan digigaxoono qalbigeedu adag yahay noqoto kay dhashayna uma roona kay u dhaxdayna uma roona hadday gabadhu wadaqoo noqoto dumarka naxdin iyo naxariistay ku fiican yihiin marka la yidhaahdo qofkaasaa dhintay haddii naxariistiiyo naxdintii dumarnimo laga waayo tiraahdo ma ku noolaaba waxba ma tira inaa iska dhintay mise qaar ka wanaagsan dhintay laga wacan baa la yidhahdaa oo dee iyada waa wax badan oo nugulba iyada gacanteeda ku jira caruurtii kow ka yihiin mahmaha laba laydaa waxaa ka mid a laba socodkay ku wanaagsan yihiin baa layidhi ragga iyo raxmadda baa layidhi raxmadda macnaha waa daruurta cirka oo inay hadba meel ka da-day ku roon tahay ragguna socodkuu ku wanaagsayo mahmaha bahayd ragga socodka waa u door hadduu mawdku daayo dee waana dhulka marana ilaahay baaba dee yidhi oo eegeega u fiirsada waxbaa idinku sugan labana fadhigay ku wanaagsan yihiin oo dabka iyo dumarkuba hal degal joogoodaasi ku wanaagsan yihiin oo dee shareecada islaamkuba inay dumarku guriga joogaan ee boqorad ka ahaadaan ay ka adeegaan oo iyaga fadhiga loogu shaqeeyo ninku dibadda kusoo rafaado sharcigeena islaamkaaba dhigay marka labana dumarka iyo dabkuna halkaasu ku wanaagsan yahay hadduu sida daadka u socdo dee waxbuu aafeynayaa waxbuu ololinayaa waxbuu maaragtay dhibayaa labana socodka ku fiican yihiin labana fadhiga ku fiican yihiin baa markaa saas bay mahmahdaasi u taallaa mahmaha laba layidhaahdo dee waa badan yihiin laakiin waan korkaxaadinaynaa kolba in kooban oo tusaala una bay ka soo qaadnaa maskaxdana ku haya mahmahdu xaraf raac bay lahayd markaan ku idhi oo rag calooshii la ciyaar iyo ciilkama kore dee waa xarafkeedu waa cirteed bogatiyo casar seexatana waa ragga iyo raxmaduna waa ra markaa mahmahu saasay hal iyo laba iyo saddex liba xaraf raac isaga leeyihiin mahmaha saddex layda ah oo kuwa hal layda soo raaca xagga badnaanta ah murti aada u badan baa ku dhex jirta saddex baa lagu kabaabaalay macnaha waxaan mahmaadu ku faraysa haddaad qaadato waxaanay kaa reebaysana ka tagto waa qaab nololeedka ugu wanaagsan bay weyaan adduunkaagoo yar iimaan baa lagu kabaa aqoontaadoo yarna aamus baa lagu kabaa aqalkaagoo yarna ardaa baa lagu kabaa labadaa horaa nolosha muhiim u ah marka oo aqalkaagoo yar ardaa baa lagu kabaa marka aqalkaagu yar yahay ardaagaa ragku seexanaya halkaaseba dee maanta ardaagii waa laga yimid laakiin labadan kale aqoontaadoo yar aamus baa lagu kabaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa ila hadal aan ku gartee qofku markuu hadlo garashadiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo siduu wuxuu arka iyo indheergarad iyo indhowgarad iyo inabagarad midkuu yahay baa laga gartaa marka aqoontaadoo yar haddaad iska aamusto waa lagu tuhmayaa dee murti baana ahay tuhunku waasad in lagu tuhmaa waasad adduunkaagoo yarna iimaan baa lagu kabaa oo bini aadanka baahidiisu maba dhammaato rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina aadan haddii laba togoo dahaba la siiyo mid saddexaad buu ku hamiyaa hadda labadaa maahay tog barhkii baanu dhameeyeen haddana mid saddexaad markaa baahidu xadba ma leh laakiin adigaa waa lasoo ururiyaa oo intaadaa lagu ekeeya marka
waxa weeyaan qaab nololeed haddii la dabaqo qofka qofnimadiisa wax u taraya oo haddaad adigoo aqoontoodu gaaban tahay aamusto markay ugu yar tahay waxa kugu jiraan la ogaanayn mahmaah baad tidhaahdaa aamusnaantu nacaskana waa u xilqarsiimo fariidkana waa u hubsiimo baa layidhi oo markaad iska aamusto haddaad nacas tahayna waa lagu ogaan maayo haddii aad fariid tahayna hubsiimiyo dhugashay kuu taho u fiirsi bay kuu tahay oo waxaa layidhi nin boqorabaa damcay nin uu dhalay oo nacas ahaa inuu uga guuriyo nin kaloo boqora inantiisa u guuriyo dabeedna wuxuu kula dardaarmay marka meeshaa la tago inantaa loo doonayo xagga inaanu hadal nimankana wuxuu ku yidhi aamusiyo hadduu israa hadla ka dhex gala ninkaa dabadeetana dee waxaan sababtan uu boqorka ula xidhiiraya inantaas aynan haboonahayd dabeedna markii xaggii la tegey buu damcay dee nin lagula dardaarmay inuu aamusi aado boqorku markaa uu inanta ka guursanayey ayuu saa u yareego wuxuu arkay isagoo dhowr jeer ku xadaya boqorka shawsha dee waana nin madhan oo maskaxdiisu boqorkii baa yidhi maanta waxaa ninkaa baasaa sheekeynaya dee idinku waa hadlayseene bal hebelow dee ninkii sidii wax kale looga eegayn buu yidhi anigu intaan halkan fadhiyaba waan yaabanaayo maxaad la yaabanayd marka madaxaagaa weyn maalintaad dhalanaysay hooyadaa wixii uu dhib soo mariyey waa kan aamusiye buu ku yidhi macnaha maxay noqonaysaa hadduu iska aamusnaan lahaa waxaan ku dhex jira dee cidna ma ogaateen inuu meel maran yahay maarat hadalkuna nin baa lagu yidhi saddex ka waranoo hilib ka waran oo hadal ka waran oo habla ka waran baa layidhi markaa nin wax aqoona buu ahaa wuxuu yidhi hadal ka warramaye hadidnaado hilibna ka warramaye laf ha ku yaala haddaad hilib wanaagsan rabto ka lafta ku yaala malaha dee marka la kariyo hilibka lafta ku yaala dhuuxa iyo waxba malaha kusoo duxa oo ma aqaan hablana ka warramaya ha xishoodaan buu yidhi haddaad inan xishoodka weyda iskaga teg buu jeedaa hadal haddaad odhanaysana hadal dedan oo qurux badan maasada aad raawiya sirta noloshana waxaa ku jiray hadalkana sar weedhiisa ha ka tegin sar beebtiisa quruxda hadalku waa dadkeeni hore waxaa odhan jira haasaawaha waa la shaqlaa aqoontaadoo yar aamus baa lagu kabaa marka adduunkaagoo yarna iimaan baa lagu kabaa aqalkaagoo yarna ardaa baa lagu kabaa mahmaha baad tidhaahdaa saddex lagu waaniye saddex bay halis u tahay baa lii caalim alla ka cabsi lagu waaniyey cadaab aakhiru halis u yihi waaba kii wadaadka ahay dadka waanin lahaa amiyad ilaahay ka baqayn layidhi ciroola dantii lagu waaniyena caydh buu halis u yahay cadrad xishood lagu waaniyeyna baa layidhi ceeb bay halis u tahay cadradi waa gashaanti dimaasadii gaariya ku jirtay adna cadrad raado cadrad maaha socod badan xishood baa u caada ah caqli waa u waayeel cimri waa u gaban weli caqli cirib baanay leedahay markaa cadrad maaha socod badan cawra maaha socod inanta xishoo la yidhi waxaa ka xishoo laydhan bay halis u tahay mahmaha saddexdaydaa waxaa ka mid ah saddex way ku hudaa hami badan hurdo badan iyo haasaabo badan baa layidhi hurdaduna dee xilli bay leedahay hamiguna waxaa lagu jiraa qabashadiisa ka muhiimsan haasaawuhuna dee wakti buu leeyahay markaa hurdo badan iyo hami badan iyo haasaabo badaniba hadday bataan macnaha way ku hodaan waktigay kaa hadlayaan saddex waktigay kaa hadlaysaana waa kuwa da yidhaahda hadh arooriyaad hogol xagaa iyo helaac basari cadar xagaana way yidhahdaan mahmaha saddexlaydaa waxaa ka mid a saddex baa lagu caddeeyaa ilka run baa lagu caddeeya hadal run baa lagu caddeeyaa midina raawin baa lagu caddeeyaa ilkana rumay baa lagu caddeeyaa rumaygu waa cadayga marka muhiimaduna waxa weeyaan ta u horeyso ah hadal run baa lagu caddeeyaa labada kale waxaa laga yaabaa kaabisunu yihiin midina raawinku waa soofaha rumayguna waa cadayga
markaa mahmaahu dee waa badweyn waliba waa badweyn marwaana ah rag saddex baa u liita baa layidhi matoshe matashade matashiishe waa saddexdaa ha noqon baa lagu leeyahy matoshe ha noqonoo nin dantiisa garan waaye ha noqonee maradaada muxuu yidhi ibraahim garle maradaada duugii way dilaacsantee tuur dantu kuma faraysee dib u sii karkara buu damiirsani ku leeyahay dee ina maradu kaa dilaacsanaato tolataa waxay dhaantaa inaad qaawanaato ama iyadoo dilaacsanaad ku socoto markay ugu socday waxaa tahay qof caajis ka batay matashade qof aan dantiisa aqoon weyn taladiisa aqoon weyn iyo matashiishe qof aan waxa gacantiisa soo galo gumaradiisa yaryaraysan oo dhaqaalaysan aqoon weyn matoshe iyo matashade iyo matashiisha u liita baa leeyahay saddex baa kasii liitaa leeyahay taada ma yeele tiisa ma bixiso tu kalena kuma meel mare nin labadii mahmaadu sheegtayna midna aan ahayn arrinkeenna ahayn oo aqbalkeenna ahayn oo taada ma yeelo taladaada nin maan qaadanin tiisuna nin aanay bixinayn oon garasho wanaagsan u dhalan tu kalena aan qaadanin saddex baa ugu liitaa layidhi nin maqan oon la tabin nin joogoon la tirin iyo nin tegayoon la celin baa layidhi nin maqan oon la tabin nin baa bari qola ku tiri intuu gar u qaaday aftahan buu haayo niyo hanaga guurine ha naga tegine noo soo guuro nala deg anaada nin caqli badana wax aqoona baa tahay wuxuu yidhi saddexaan tolkay ka helaya haddaan idinka helayo waan idinla joogo waad ii soo guuri maxay yihiin baa layidhi wuxuu yidhi marka arrini jirto ha loo yeedho ha yidhaahdo ha la yeelo haddaba fiirso saddexdaasaan tolkay ku qabay buuri ha loo yeedho hebel oo maqan hawshan la geli maayo waa nin maqan oo la tabin buu noqonayaa kaanintaa lahaydide ha yidhaahdo geedka marka la fadhiyo ninna waxaa la yidhaha war hebel ow hadal dee ninna war iskaba aamo adigu hebel baa hadlaya naga yar aamoba iyo ha la yeelo war sidaa hebel soo jeediyaan ku raacsanahay saddexdaa haddaan idinka heliyo waan idiin soo guuri waxaan ka wadaa marka nin joogoon la tirin qiimo kama lahayn markii horeba nin maqan oon la tabinna qiimo ma lahayn nin tegayo oon la celinna qiimo ma lahayn hadduu yidhaha waan xanaaqoo shirka waan ka baxay warda nin shirka kacay oo siiga yarabay noqonaysa bal intaan qaybahan mahmaahdu waa badweyn marar kale inuu isugu iman doono mooyaane qaybtii mahmaahda ahaydna intaasaan kusoo afmeeranaa intaanu barnaamijka qaybo kale oo ka mid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu